dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheen oo dariskeenu ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaalla oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay naqaybiyaan annaga walaalahana iyo annaga intay naqaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhexdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danahanaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan nidaamka dawlad dhisidda iyo nidaamka federalismka sida uu uga shaqeynayo Ethiopia sida ay deegaanka Soomaalidu ay nidaamkaas uga faa'iideen iyo way aragnimadooda marka inahaas marka la isku geegeeyo runtii booqashadu aad iyo aad muhiim u ahayd annaguna macluumaad badan iyo aqoon waan ka soo kororsanay iyo way aragnimo dadkii Soomaaliyeed oo dawlad kale iyo dal kale ku noolaadeen laakiin marka ugu dambeysay dad Soomaaliyeed yaan wada nahay noloshooda iyo muxuu ahay wanaagooda aan soo aragno adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu gudoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxa xun ugu gudoomiyeen ayaa qoomkaas yiraahdaa ama shaqligaas yiraahdaa haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan luqadda Soomaaliga waxay ka mid noqotay 4 luqadood ee Ethiopia la ogol yahay shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda in loogu fariisto oo imtixaan oo yani national oo Ethiopia dana dadka adeega maanta ka jiraay dalkaasi jaamacadda Jigjiga 22,000 oo arday ayaa dhigata oo boqolkiiba 90 ilka badan Soomaali ay yihiin Soomaalida deegaanka iyo Soomaalida Soomaaliya intaba muxuu ahay isugu jirto waxaan anigu taakaleeyahay Ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestatan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doona marka wax tirtiri kala ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u gudoomin dadkanagii oo isku leeyna mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaala ay si fiican ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaalad ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jiraa inay ku qaybsadaan sidaas xaq ah Soomaaliya Ethiopia taariikh dheer oo dhib badan ka dhaxayso waana waxyaabaha runtii anagu aanan ka hakanin annaan qarinin inaan taariikhdaas dheer bedelnaa rabna cilaaqaadka labadan dal ee Soomaaliya Ethiopia inuu hagaagaan rabna haddii colaad iyo dagaal iyo shalay ay jireen maanta in saaxiibtinimo iyo muxuu ahay dana ka wada dhaxay labada dal la abuuraan rabna haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaameynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaan Soomaaliya Franchise waxaan sunnaynahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada afgaradkaas waa inuu u socdaa oo ay dawladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay ogolaato khiyaarkooda inay ogolaato xornimadooda inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Frenchiga annagu haddii waliba loo eego taariikhda dawladda Franchiska ah oo ka dhalatay dawlad revolutionary waligeed ba ahayd oo xoreysay Afrika oo idil oo ay kaga hartay Soomaaliya Franchise inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaasu waa tala ugu fiican ama waa siyaasad ugu fiican baan is leeyahay dhulkaas madaxweynuhu muxuu ka aaminsan yahay mid laga wada hadlayo waa mid ah sideedaba hal mid oo mabda ah inay caddaha rabnaa dadka noloshooda cid carqaladeynaysa cudurdaar malaha horumarka iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhayso xoreynayna iyo waa waxaynaynaa
ما راعسنين ما أي سنين إن العرق على ذي إن مشكلة لقوا ما قبل